kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena qodobada barnaamijkeena aad kaga bogan doontaan waxaa kamid ah Iran oo beegsatay qaybo kamid ah Israel iyo waliba weeraradii ugu baanaa maanta lagu qaaday magaalada nuclearka ku caanka Israel ee Dimona maxaa ka soo kordhay faahfaahinadii ugu dambeeyay weeraradii ka dhacay garoonka Israel ee Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv ku yaala iyo sida maanta shaqadiisa Iran ay u istaajisay weeraradii Iran ay ku qaaday mid kamid ah diyaaradaha casriga ee Mareykanka miyaa la soo riday bayaan ka soo baxay Mareykanka ayaan sidoo kale soo qaadan doonaa iyo bayaankii ay ku sheegatay dowladda waddankaas Iran inay waxyeeleysay diyaaradaasi wararkii ugu waaweynaa wada hadaladii saacadihii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale qayb ka barnaamijka oo aan kugu soo gudbin doonaa daawade qodobadaas iyo kuwa kale xiiso badan ayaad kaga bogan doontaan waxaan ka codsanayaa channelkeena subscribe saartid oo aad sii share gareysid halkani waa Warweyn TV ku soo dhawaada daawadayaal qodobadaas oo dhameystiran sidoo kale qodobo kale xasaasi ah oo inoo soo socdaan oo ku saabsan dagaalada koonfurta dalka Lubnaan iyo taangiyadii maanta laga gubay Israel aanu ku bilownay marka laga hadlayo weeraradii u dambeeyay ee Iran ay ku qaaday Israel maanta waxay ahaayeen kuwa aan sahlanayn afar mawjadood oo aad iyo aad u xoogan oo gantaalo noocyo kala duwan lahaa ayaa la tilmaamaya hal saac gudahood in lagu beegsaday magaalooyinka Israel faahfaahinadii ugu dambeeyay waxay ku waramayaan magaalada Qudus magaalada Tel Aviv iyo waliba waqooyiga Israel inay ahaayeen kuwa si ba'an loo beegsaday markaa qiyaastii 40 daqiiqo ilaa hal saac ayaa lagu qiyaasay inta weeraradaas ay ku dhaceen waxayna ahaayeen kuwa ka koobnaa gantaalo kala duwan faahfaahinadu waxay tilmaamayaan Qudus inay ahayd mid kamid ah weeraradii ugu baanaa maanta inay ku dhaceen isla markaana magaalo nasiib u heshay gantaalo aad u xoogan ayaa la tilmaamayaa maanta Tel Aviv ayaa sidoo kale iyaduna nasiibkeedu aysan yareen marka la eego gantaalada Iran laga soo tuuray waqooyiga Israel iyaguna waxba ku dhacay maanta gantaalo nooca balastiga kuwa cruise iyo waliba diyaarado drones ayaa la sheegay in maanta lagu beegsaday weerarada markii hore waxay ahaayeen kuwa maalintii dhici jiray marna habeenkii laakiin hadda waxay u muuqdaan kuwa habeen iyo maalin si joogto ugu soconaya isla markaana lagu beegsanayo Israel weeraradii maanta dhacay waxaa sidoo kale lagu beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Tel Aviv garoonkan waxaa la yiraahdaa Ben Gurion waa mid kamid ah garoomada ugu muhiimsan marka laga hadlayo Israel hore waxa uu sameyn jiray 250 duulimaad maalintii laakiin maanta xitaa shaqadii ayuu gabay waxaana la tilmaamayaa in 80 markaa diyaaradood ama 80 duulimaad kaliya uu sameeyay taasoo ku tusinaysa gantaalada inay maanta aad uga xoog badnaayeen marka la barbardhigo maalmihii hore gantaalo ayaa ku dhacay agaarka garoonka waxay burburiyeen 3 diyaaradood sida wararkii ugu dambeeyay sheegayaan warar kale waxay sheegayaan oo Iran ka soo baxay in la beegsaday qayb lagu sameeyo hubka isku dhex yaala garoonka ayaanu beegsanay bay leeyihiin taasoo ku tusinaysa Iraaniyiintu lafsadoodu inaysan sahlanayn oo ah kuwo xogo helaya isla markaana ay ku beegsanayaan goobaha muhiimka weerar ayaa lagu qaaday xarunta korontada ee Orod Rabin la yiraahdo waxaana way bixisaa 25 ilaa 20% korontada Israel fariintan ayaa markaa noqonaysa in iyagu Iran mar kale gaari karaan kaabayaasha muhiimka Israel sidoo kale talisyo militarigu leeyahay oo ku yaala waqooyiga ayaa la beegsaday xitaa xaafado ku yaala magaalada Tel Aviv oo ganacsiga iyo waliba dadka hodanku ay degaan ayaa lagu soo waramayaa goobaha la beegsaday maanta inay qayb ka ahaayeen nidaamyada difaaca Israel ayaa u muuqanaya kuwa si weyn markaasi u naafoobay 92% ayay ku sheegtay Israel in la qabtay gantaaladaasi laakiin 8 ayay waxay sheegeen in bartilmaameedyadoodu lala helay sida Israa'iiliyiintu iyagu ay sheegayaan laakiin markaad fiirisid wararka hadda la helayo 115 ruux oo dhaawac ayaa la tilmaamayaa inay ka gaareen magaalada Dimona la yiraahdo oo ah meel xasaasi ah waxa sidoo kale ay sheegeen in la qabtay gantaalo badan laakiin haddana Iran waxay aad iyo aad ugu sameynaysaa si aan caadi ahayn istaraatiijiyadeeduna waxay tahay in la daaliyo difaacyada hawada sidoo kale waxay ku beegsanayaan gantaalo qiimahoodu aad u fudud yahay qarashkoodu jaban yahay halka la tilmaamayo arowgo kale 3 milyan inuu yahay gantaalka lagu difaaco gantaalada iyo waliba hubka halista badan hawada soo gala 15 milyan ayaa qaarkood kale la tilmaamay inay gaarayaan Mareykanka ayaa maalmo gudahood 5.6 bilyan oo dollarka Mareykanka ku qarash gareeyay dagaalkaasi waliba sida ugu difaacayo gudaha Israel haddaba warar badan ayaa noo soo socda sidoo kale waxaa jira weeraro ka dhacay gudaha dalkaasi Iran oo lagu beegsaday meelo kala duwan oo muhiim ah maanta waxaa sidoo kale la beegsaday dekada Bandar Abbas oo kamid ah kuwa ugu muhiimsan dekada Bandar Anzali ayaa lagu naanaysaa dekadan waa mid kamid ah kuwa ugu muhiimsan waxa leeyahay xarun hub
diyaarado droniska shahida iyo soo saarta goobo shidaal iyo weliba kuwa cuntada ayaa la burburiyey. Israel waxay sheegtay inay burburisay xitaa maraakiib. Tani waxay ka dhigan tahay in markaa weeraradu ay sii kordhayaan, xaaladuna aysan fududaan doonin, isla markaana maalinba maalinta ka dambaysa khatartu ay sii ziyaadi doonto. war ka soo baxay ciidamada Khatamul Anbiya ee dalkaasi Iran waxay si toos ah u sheegeen ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran inay ku guuleysteen in la soo rido diyaarad dagaal oo Mareykanku lahaa oo nooceedu ahayd F-18. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in gantaalo dhowr ah aanu ku beegsanay ay yiraahdeen, waxaana ujeedada ugu weyn lagu sheegay inay waxyeeleeyaan diyaaradaasi. mas'uul ka tirsan Khatamul Anbiya oo la hadlay warbaahinta wuxuu sheegay ujeedadu inay ahayd diyaaradaasi waxyeelin la soo gaarsiiyo, balse ay ku guuleysteen diyaaradaasi in la waxyeeleeyo. haddaba faahfaahin inta ka badan lagama hayo, laakiin wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan Iran maanta inay ku guuleystay diyaaradaasi F-18 waxaana la arkay difaacyada cirka oo hawada gantaalo u tuuraya. ma garanayo halkii ku dhacday, ma nabad gashay mise, laakiin waxaa jiray bayaan ka soo baxay dowladda waddanka Mareykanka gaar ahaan qaybta hogaaminaysa howlgalkan lagaga hortagayo dowladda Iran. waxaana yiraahdeen Iran ma jirto wax diyaarad dagaal ay soo riday, waana been. difaacyadooduna ma ahayn mid ay markaasi u suura gashay in diyaaradaasi iyagu ay soo ridaan, laakiin Iiraaniyiintu waxay yiraahdeen waxaanu ku guuleysanay inaanu soo ridno diyaarad F-18 waana guul weyn haddii Iran iyadu guushaasi ay gaarto, laakiin maalmaha ayaa cadeyn doona. haddaba waxaa la tilmaamayay maanta inay beegsadeen markabka Abraham Lincoln, waana mar kale inay gantaalo ku beegsanayaan, iyagoo hore la sheegay in gantaalo ay ugu beegsadeen Gerald Ford, iyadoo sidoo kale shalay tole Pentagon-ka uu tilmaamayay dab kaliya ka kacay qaybta madbaqa. kaliya sheekadu inay ka weyn tahay, isla markaana 200 oo askari ka badan inaysan ku dhaawacmi lahayn dabkaasi, laakiin dabka wax ka weyn ay jiraan. Pentagon-ka waa saa sheegay, laakiin ma dhahayo Iran baa anigu waxyeello ay gaarsiisay. marka tanna wax badan baa maalmaha soo aadan la cadeyn doonaa. tii hore waa la ogaaday F-15 inay gantaal ku dhufteen oo dhaawaceen, warbaahinta Mareykanka xitaa way xaqiijiyeen. tanna iyada ayaan ka sugi doonaa. sidoo kale wararkii ugu dambeeyay waxay ka hadlayaan arinta ku saabsan dagaalada ka jira koonfurta dalka Lubnaan. wadahadaladii iyo shuruudaha ayaa noo soo socda. dagaalyahanada ururka xisbiga ayaa waxay ku dhawaaqeen dagaalyahanada ururka xisbigu maanta waxay sheegeen inay ku guuleysteen ilaa 8 taangi oo nooca Merkava iyagoo inay ku burburiyeen degmada la yiraahdo Tayib ee koonfurta dalka Lubnaan. maalmahan Israel waxa ka haysta waxaan caadi ahayn. xisbigu waxay halkaas ka sameynayaan wax aan hore loo sameyn. weliba wararkii ugu dambeeyay waxay leeyihiin dagaalyahanadu waxay u fariisteen oo jilbaha u aaseen weerarada sidii uga hortagi lahaayeen. waxay ku guuleysteen baa leeyahay dhowr taangi. in maanta kaligeed 8 taangi iyagu ay burburiyaan waxay ku tusinaysaa in guulo weyn oo dagaalyahanadu ay ku tallaabsanayaan ay tahay. markaa sidoo kale markii saddexaad ay maanta sheegeen inay beegsadeen ciidamo doonaya inay isku urursadaan mashruuca Tayib la yiraahdo. marka ay burburinayaan Israel bridgeadii iyo buundooyinkii xanuunkii baa gaaray baa leeyahay, hiidkii waa gaaray. markaa sida warbaahinta dalka Lubnaan ay ku waramayso. warbaahinta Lubnaan waxay sidoo kale sheegaysaa in ay si adag maanta dagaalyahanadaasi u beegsadeen haddii ay noqon lahayn gudaha Israel ama xitaa tuulooyinka xadka, laakiin dagaalada halkaasi ka haysta insha Allah waxaan isku dayi doonaa barnaamij gaar ah inaan kaga diyaarino waxa ciidamada guutada gufcaati la yiraahdo iyo waliba khasaare ay la kulmayaan. wadahadaladii haddaan u soo noqono, Mareykanka waxa uu isagu tilmaamayaa in ay wadahadaladu yihiin kuwo wada wanaagsan haysta, isla markaana wax dhibaato aysan ka jirin. laakiin Iran warkeedu waa cad yahay. telefishinka Press TV oo leedahay dowladda Iran ayaa ku dhawaaqay mas'uul sare oo Iran ah in si toos ugu sheegay in qodobadii 15 qodob ee Mareykanka uu soo bandhigay oo Trump uu isagu hogaaminayay in gebi ahaanba la laalay. waxaana yiraahdeen shuruudahaasi in marinka Hormuz la furo, in markaas iyo gacanta ay ku hayaan canshuurna lagu soo korooyi karin maraakiibta iyo waxyaabo kale iyagu inay jiraan, laakiin waa diideen. waxay yiraahdeen anagu qodobadan ku sheegayno ko marinka Hormuz waa la furaya, maraakiibta annaga kormeerayna oo Iran baa gacanta ku haynaysa goobtaasi. sidoo kale canshuur lagu soo rogo markabka maraakiibta halka maraysa annaga ayaa canshuurta qaadi doona. joojinta colaadaha gobolka oo dhan, laakiin hal meel aysan noqon doonin Lubnaan ay ugu horeyso, laakiin marna ma jiri doonaan shuruudo annaga maslaxadeena ayaana dhici doona. markaasi qodobadaas ayaa ugu muhiimsanaa Iiraaniyiintu waxay la yimaadeen, laakiin sheekada yaab kale waxa waaye Jared Kushner iyo Steve Witkoff hawada ayay ku cuneen iyo Marco Rubio. waxay yiraahdeen raggan kaarkoodu waa gubtay. annagu haddaan rabno qof haddaan la fariisanayn waxaan la fariisanaynaa ninka madaxweyne ku-xigeenka ee J.D. Vance oo madaxweyne ku-xigeena muxuu uga duwan yahay. saaka waxaan kuu soo gudbiyey war ay bahaysay shabakada Fox News oo Mareykanka aanu ka xiganay oo ahayd in Iran ay tiri anigu ma kala xulanayo labadoodu.
waan arki doonaa halka la kala marayo ayaa halka channelka subscribe saaro si aad u heshid xogtii ugu dambeysay mahadsanid daawade